Xoogagga difaaca Ukraine ayaa u babacdhigay 10 weerar oo kaga yimid Russia gobolada Luhansk iyo Donetsk. Weeraradan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa daran oo ay soo qaadeen ciidamada Russia, ujeedkooduna ahaa in hore ay u sii socdaan. Ha yeeshee xoogagga difaaca Ukraine oo ku sugan gobolada Luhansk iyo Donetsk ayaa iska difaacay oo khasaare ba'an soo gaarsiiyay maalintii shalay sida ay sheegeen warbaahinta Ukraine ayaa waxa ay tibaaxeen sidoo kale in xoogagga difaaca Ukraine ay iska difaaceen weeraradan oo ahaa 10 weerar. Warbaahinta xoogagga difaaca Ukraine ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen iyaga oo warbixintooda ay ku faafiyeen baraha bulshada ay ku xiriiraan maqribnimadii 19 bishan, waxayna hoosta ka xariiqeen in xoogagga difaaca Ukraine ay burburiyeen taangiyada gaashaaman ee dheereeya oo loo yaqaano Armored Assault Vehicles. Laba taangiyada loo isticmaalo ujeedooyinka badan ee loo yaqaano Multi-Purpose Light Armored Towing Vehicles. 7 taangiyada caadiga ah, 7 gawaarida gaashaaman, 7 gawaarida ciidanka lugta, 10 gaari oo xamuul ah iyo gawaari ciidan oo kale. Sidoo kale weerarkan ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 100 askari Russian ah sida laga soo xigtay warbaahinta xoogagga difaaca ee Ukraine. 24 Febraayo ee sanadkani, madaxweyne Putin ayaa waxa uu sheegay isaga oo markaasi bilaabayay duulaanka Ukraine inuu burburinayo dhulkana uu dhigayo furaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine, inuu weerar ba'an uu ku qaadayo magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo tuulooyinka dalkaasi isaga oo isticmaalaya madaafiic, sawaariikh iyo gantaalaha balaastikada ah.